Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Cooking with Ladna. Haddaad channelkayga ku cusub tahay, please subscribe-ka saar. Haddaad rabtid mar walba inaad la socotid channelkayga, subscribe-ka dhankiisa gambaleelka ku yaala riix si aad mar walba videogayga cusub aad u heshid. Asxaabta, sidaad u jeediin, maanta waxaan ii hayaa sida loo suubisto basbaaska. Sidaan aniga u suubisto ayaan nila wadaagayaa. Sidaad u jeediin, in yaroo raqay ah ayaan meesha ku haystaa. Hal koob oo biyo ah. Waxaan ku haystaa oo kale milixdeedii in yar oo basbaasan soo jarjartay, gobol basal ah iyo in yar oo kamsar caleen ah. Sidaad u jeediin, intaas ayay alaabteeda ka kooban tahay. Daawasho wacan. Mashiinka wax lagu shiido ayaa soo qaadanaysaa. Hadda alaabteeni intii aan tusaayay oo dhan ayaan mashiinka ku shubayaa. Aad ayay muhiim u tahay inaad marka hore biyaha u hormarisid, hadhow shiiditaanka ayaa ku fududaanayo. Hadda biyaha u dambeysiisid, hadhow shiiditaanka xoogaa inuu mashiinka si fiican u shiidi waayo ama inay wax badan kugu qaadato aad dhici karto. Sidaad u jeediin, alaabteeni oo dhan mashiinka waan ku darsanay. Hadda shiiditaankii ayaan bilaabeynaa. Asxaabta, si fiican ayuu iigu shiidmay. Waxaan yara jeclaystay inaan hal koob oo kale oo biyo aan ku shubto. Sidaad u jeediin, haddana waan isku shiidayaa. Saas ayuu basbaaskii ii noqday. Basbaas aad u fiican oo laga sheekeyn karin. Wax walba ayaad ku cuni kartaa. Aad inaad oga heshaan ayaan rajeynayaa. Hadda sidaad u jeediin, meeshan aan ku shubanayaa. Hadhowna fridge-ka ayaan gelinayaa. Markaa rabtid sidaad u isticmaashid. Daawasho wacan.